عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وفارح محمد عبد الله قرح. وحنا مواطن هير سومالي لانا waxaan doonayaa inaan adeerkii ka dhiibto warqadii wikileakska been abuurka ahayd dad badan oo sheeganaya siyaasiyiin waaweyn oo reer Soomaaliland ay isku mashquuliyeen ama ay dadka bariyahan ay warbaahinta dhex wareegaysay kulleeto dadka meelaha caynkaas oo kala wax ka baadha waxa weeyaan waa dad aan siyaasad fog lahayn ama aan aqoon si magaranaysaa iyo himilo fog lahayn oo wax lagu hogaamiyo website-kaas waa website been abuur oo la yaqaan caalamka waxa wax laga xaraabaysto maaha wax golo la yimaado in weyn la yimaado ruuxantii waxyaabo fara badan oo waqtigan oo waqti Ramadaan ah oo waqti cibaado ah ayaa haddana markaad eegtid dadkan waaweyn ee waliba xusbigan la yiraaho wadani oo bariyahan iska caadaystay wax badan oo aan milgalahayn inuu bulshadeena inta soo dhex dhigo ku dhex wareeriyo ruuxantii waxa loo baahan yahay in dadka shacabka reer Soomaaliland waqtigan si ahaanba guud ahaanba adduunka caalamka hogaamiyayaashu waxay ku kala duwan yihiin dadna waa dad sida cirro oo kala buugaga mudmado akhriyay iyo xusbigiisa dadna waa adduunka waxa jira laba buug cad iyo buug madow marka waxaan oran karnaa xusbiga la yiraaho wadani waa xusbi akhriye buugta madowna maaha qarnigan iyo dadkeena dhexdiisa kuwa ka shaqeynaya haddii aan dib taariikhiyan ugu yara noqono ama isbarbar dhigno xusbiga kulmiye oo ay bariyahan dhaleecaynayeen iyo xusbiga wadani xusbiga kulmiye ragga hogaaminaya waa raggii ururka Islaam hogaaminayay waa rag sharaf dalkan kule waa rag dhiigooda iyo naftooda iyo maalkooda iyo cimrigoodaba u hibeeyay dalkan waqtigaas oo gudoomiyaha xusbiga wadani uu ahaa safiirkii u fadhiyay wadanka Moscow u fadhiyay dawladda Siyaad Barre kadibna uu hogaanka uu shaqeynayay Siyaad Barre isagoo godka ku jira oo 10 sano ka dambeeyay oo amarkiisa ku shaqeynayay taasuna ay macnaheedu yahay nin dhintay u shaqeynayay 10 sanadood ku shaqeynayay sharciyadii ninka la oran jiray Maxamed Siyaad Barre ragana waa raggii xoreeyay waa raggii xidigaha geeska Afrika noqday ee Siyaad Barre ka saxan waayay Soomaali fila ama Muqdisho uu ka joogi waayay oo ka galay Nigeria iyo West Africa marka haddaynu nahay bulshada reer Soomaaliland waxaa loo baahan yahay in siyaasadda loo barto si caafimaad qabta oo ciqdi iyo magaranaysaay taariikho mudmadow iyo qof magaranaysaay aan lala imanin badda ruuxantii waxaan aad iyo aad uga hambaleynayaa gudoomiyaha xusbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland Axmed Sinaayo iyo dhammaanba shacbiyada reer Soomaaliland waxaan Ilaahay inooga baryayaa inuu Ramadaanta inaga aqbalo Ilaahayna inaga dhigo dad isku tiirsan oo midnimadooda iyo muwaadinimadooda iyo magaranaysaay wax qabadkoodu labadaba muuqdo aad iyo aad baan idin salaamayaa kale jirta waxa weeyaan waxa jirta ruuxantii waxa wanaagsan shacabka reer Soomaaliland inay noqon kuwa cayda ku tartama asi ay noqdaan kuwa wax qabadka iyo dantooda iyo inay dadkooda wax ka bedelaan ay ku tartama oo shacabkooduna saa ku haga waxaan dhacday nin la yiraaho gudoomiye ku-xigeenka xusbiga wadani hebel set banarkiyo Muuse Biixi waxle maaha laba nin oo isku galaasa mujaahid Muuse Biixi Cabdi Ilaahay cimrigiisa ha dheereeyo waa nin in magac iyo magaranaysaay sharafba kule bulshada reer Soomaaliland waana nin magaranaysaay mujaahid oo xalaala marka anigu waxaan u maleynayaa inuuna ninkaasuna laba haldiba karin oo magaranaysaay ahayn laba shakhsi oo wada sheekaysan kara marka taana waan uga taxsiideynaa anagoo ka hadlayna cod shacabka Soomaaliland marka kulleeto waxyaabo fara badan oo aynu wadani ka soo baranayo ay ka qeylin jireen oo wadada Ceerigaabo ka mid tahay ay lahaayeen maalin dhowto magaranaysaa ay lahaayeen ma suurta gali karto oo taimka suurta gashay Cabdiraxmaan Cirri intuu waddanka joogay musuqmaasuq adduunka la sameeyo waxa ugu xun xagga sharciga crime la sameeyo waa offense waa crime aad u xun marka waa ninka sharciga duplicate gareeyay sharciga waddanka musuqmaasuq ku sameeyay
ruuxantii waa ninka taariikhda caynkaas leh ee ninka dhintay u shaqaynayay 10 sannadood maanta Muuse Biixi iyo Axmed Siiraayo looga warwari maayo waddanka Somaliland iyagoo dawladda siyaad baroosaa ugu hayso awoodaha ugu waaweyn quwadaha Afrika ka mid ah ka dhaqaaqado wadda ka maray maanta iyadoo ay Burundi ka taliso iyo dad ma garanaysaa nooc la mid ah oo iyo Uganda iyo dad caynkaas maanta wax la oran karo ma aha nimankaas looga baqayaa midnimada Somaliland marka waxaanu leenahay madax mas'uuliyiinta xisbiga wadani qolada heer Soomaaliya ayaa isku galaastiin qoladaas ka biiraan leenahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.